السلام عليكم صاحب بيال كسر وهذا ما انت ايو تاريخها كوحها واوين قارد يوروب كدي markaan ka soo hadalnay Manchester qayb kamid ah taariikheeda oo dib u eegi doono mar kale taariikhaha kooxaha kale iyo kooxdaaba haddana waxaanu soo qaadan doonaa maanta wariyada bacdu qoslaysa Arsenal ayaan soo qaadanaynaayo waa mid kamid ah taageerayaasha ya sabarka badan laakiin ogow ciidamadooda garabka lagu ma haysan karo sidee Premier League أنا تشجع إنسان مانتو يجوا أمبيتي بيكون قادين واو وواحد يكونوا لين أرسنال يا إله يجور وأودي بين لكن بريان كوب ما نودي بين أيجوا إف كابكي حتى يقادي جرين بريان ليجا كابكي يقادي جرين حتى بريه والواي مرك إله أرسنال وقوع ما مذي وربو قوع ما مذي ها دل من الوجارة يعدان إله ور وأودي بي ها هذا خوف أرسنال يسقط دل أنتو أظن عاد بيجدالو كأولين واد أول ما يسوي صباح يسا إله ور وأودي بين كانوا جانارس iyagu maanta wax koob ma haystaan laakiin waxay ku faanaan kaliya hal arin bay madax ku degsadaan waxay yiraahdaan markastaba war anagu waxaan nahay Arsenal waxaan nahay kuwa Premier League taariikhdu ambiitin ku qaado horyaal idinku ma samaysan waa runtood farax laga qaado waar waa kooxda qura taariikhda tani markii magaca Premier League la bixiyay 92 waa kooxda qura ee Premier League ku qaaday ambiitin kabtaas Manchester United ma gashan City na magishan Liverpool na magishan Chelsea ha sheegin Tottenham na iskaba dhaafba Gunners ya xitaa Liverpool ba marka waxa lagu leeyahay nimanka la yiraahdo Arsenal marka ilaahay waxa weeyaan ayagu waxa weeyaan bariyahan koob ma qaadaan markii hore wax isaga nasan jireen marka qaar FA Cup ka madax isaga dagsan jireen iska qaadi jireen marmarna League Cup iska qaadi jireen bariyahan FA Cup ki waayo League Cup kila laba hayaba fagaaru waxay ku haystaan marka war anagu markii cabaar la murmaba war anagu hadda korban Premier League ambiiti ku qaadnay intaas bay ku baal xooftaynayaano yaani ku xaraysay waan runtood record weyn bay haystaan oo taariikhiyana hadda waxaanu soo qaadan doonaa kooxda Arsenal qayb kamid ah taariikh weyn ay kooxdu tan u leedahay Gunners waxa uu ahaa aasaskeeda waa October 1986 waa kuwa jira 132 sano waa kuwa jira Arsenal marka waa nimanka la aasasay 138 sano ka hor ayaa kooxdan la aasasay kooxdan waa koox guuleysata waa koox aad u khatar badan waa koox taariikh leh waa koox ciyaartoy muhiim ay soo mareen waa koox inaanu caadi ahayn kooxda tan waxa lagu xasuustaa hadii aanu kor ka dulmarno taariikheeda guuleed ee nabad iska caadiga oo caamka ah ya koox kasta micnuu taariikhdeeda guuluhu waa koox weyn maadaama koox weyn ay tahay waa wax caam oo la wada og yahay guulaheeda horyaalada iyo taariikhduba waa nimanka haysto 13 jeer horyaalka Ingiriiska laakiin kuma aanu guuleysan wax horyaala tan iyo sanadii 2003 iyo 2004 marka waa nimanka haysta 13 horyaal laakiin sidoo kale waxay cid ka yihiin oo ay wax badan haystaan koobka FA Cup oo loo arki jiray inuu yahay koobka ay kaliya Arsenal madaxa ku degsato markay mataqaan horyaal ku wareerto ama Champions League ku soo wareerto waxay madaxa ku dejin jireen koobkan la yiraahdo FA Cup kaasoo waxay ka qaadeen 13 jeer markii ugu dambeysana wuxuu ahaa 2016 iyo 2017 qudhiisa Community Shield-gu waxay haystaan tiro 15 jeer oo ya markii ugu dambeysay waxay 2005 waaraan raahday waa 2017 iyo Arsenal 15 jeer bay haysataa tartanka weyn ee Community Shield-ga waa koobka ay ciyaaraan kooxda horyaalka soo qaaday kooxda FA Cup soo qaada sanadkan Man City Liverpool baa ciyaaray inkastoo Man City labada koox isku soo qaaday haddana Community Shield-gu iyaga ka qaaday kooxda Liverpool yiraahdo marka Arsenal Community Shield-guna tirada koob bay haysataayo tartamada Yurub marka la fiiriyo ayagu waligood kuma aanu guuleysan tartanka weyn ee Champions League ee dhagaweynaha 92 baa loo bixiyay tartankan magaca Champions League Arsenal hal jeer bay ku dhawaatay koobkan waxa uu ahaa sanadii 2005 iyo gaaladii waaweynaa ee Barcelona bana loo dhiibay Ronaldinho iyo Balotelli iyo kuwa kaba bariga ciyaarayo Eto'o iyo Balotelli ayaa ahaa kuwii maalinka kuwa kale meel saaray Arsenal u muuqatay maalinka inay yahay koox xoog badan oo khatar badan laakiin Arsenal maalinka waa laga badiyay oo ninka Arsenal ugu khatarta badnaa maalinka ay soo martay gool badan oo marka Arsenal iyagu waligood kuma aanu guuleysan Champions League waa waxyaabaha Arsenal taageerashooda u baahnaan lahaayeen oo ay leeyihiin haddaan Champions League qaadi lahayna ay leeyihiin marka tartanka dhagaweynaha Arsenal ayagu waligoodba kuma aanu guuleysan oo 2005 waxay ku dhameysteen kaalinta labaad oo markaas oo ay Barcelona koobka ka qaaday laakiin Arsenal
haddii aan wada dhacno ciyaartooyga Arsenal ugu safashada badan taariikhda kooxda tan haddii Manchester uu ahaa ninka ugu safashada badan ciyaartooyga Ryan Giggs waa kee kuwa kan ciyaartooyga ugu safashada badnaa taariikhda waa nin la oran jiray David O'Leary waa ninka u saftay Arsenal 722 ciyaarood oo Tom Adams ayaa ah ninka labaad ugu safashada badnaa Arsenal waxaanu ciyaaray 669 ciyaarood nin la oran jiray George Armstrong Armstrong ayaa isaguna ciyaaray 621 jeer Lee Dixon ayaa ninka afaraad ninka shanaad kooxda ugu safashada badan waa Nigel Winterborn lixaad waa David Seaman oo goolhayii hore kooxdan 564 ciyaarood u ciyaaray kooxda kano Pat Rice ayaa nin kale oo toddobaad Peter Storey sagaalaad waa John Radford iyo waliba ninka tobanaad oo ah Peter Simpson laakiin marka loo noqdo taariikhaha gooniga ay Arsenal leedahay haddaan u eegno dhanka goolasha ninka caanka ee la oran jiray Ted Drake ayaa ah ninka taariikhda hal xilli ciyaareed Arsenal goolasha ugu badan u dhaliyay waana ninka Arsenal u dhaliyay hal xilli ciyaareed gudihii 44 gool waa xilli ciyaareedkii 1934 iyo 35 marka ninka Arsenal hal xilli ciyaareed u dhaliyay goolasha ugu badan waa ninka la yiraahdo Ted Drake oo 44 gool u dhaliyay sidoo kalena markaan u soo laabano waa horyaalka Premier League waa kii ciyaartoodii Arsenal ee hal xilli ciyaareed goolasha ugu badan Arsenal Premier League ugu dhaliyay Premier League waa 38 ciyaarood 38 kulan kadib waa kii ciyaartoyga Arsenal u soo ciyaaray ee gool badan u dhaliyay waa Henry Thierry 30 gool buu Henry u dhaliyay kooxda kubadda cagta Arsenal Premier League sanadii 2003 iyo 2004 Henry 30 gool ayuu soo dhex dhigay 2003 waliba Robin van Persie ayaa ahaa nin kale oo qatar badan Robin van gool isaguna 30 gool ayuu Premier League ku dhaliyay 2011 iyo 2012 ka hor intaanu Arsenal ka tagin oo Manchester ku biirin Manchester la qaaday koobkeedii ugu dambeeyay horyaalka Premier League xitaa halka ku qaaday gool into Premier League wari Arsenal waad u ilduufteen iyo qalad muu ku ahaa inaad Manchester ka siisaan van gool waa kaayay Ferguson koobkii ugu dambeeyay ku fariistay Van Persie u qaadayo iyo horyaalkii ugu dambeeyay Manchester ay qaaday Van Persie u qaadayo Arsenal halka Arsenal muddo 2003 hadda inuu horyaalka ku guuleysan marka waxa lagu leeyahay labada nin ee taariikhda Arsenal 30 gool u dhaliyay Premier League xilli ciyaareed gudihii waa Henry oo 30 dhaliyay iyo waliba Van Persie ama Robin van gool waa kii ciyaartoogii Arsenal isaguna taariikhda hal kulan gool badan u dhaliyay Arsenal waa ninkii la oran jiray Ted Drake taariikhdu Arsenal ninkan meel weyn buu ku jiraa hadday noqoto goolasha season la dhaliyo ku ugu badan sidoo kalena waa ninka hal kulan goolasha ugu badan Arsenal u dhaliyay waa ninka Arsenal u dhaliyay 7 gool hal ciyaarood gudihiisa ciyaarta Aston Villa ay la ciyaarayeen marka uu ahaa horyaalkii koowaad sanadii 1935 waa Ted Drake waa ninka hal ciyaarood Arsenal goolasha ugu badan u dhaliyo waana 7 gool war miyaad garanaysaa daayirkii ugu yaraa ee Arsenal gool u dhaliya waa Fabregas ayaa rekoorkan u sameeyay isagoo 16 sano jira 212 maalmood jira ayuu gool ka dhaliyay kooxda Wolverhampton Wanderers waxaana ay ahayd 2 December 2003 ciyaarihii Liga Cup-ka wareegiisii labaad buuna ahaa waa wareegiisii afraad marka waxa lagu leeyahay daayirkii ugu yaraa ee taariikhda Arsenal gool u dhaliya waa legendiga iyo kabiirka weyn ee Fabregas isagoo 16 sano jira iyo 212 maalmood dhalan ayuu Wolverhampton uu ka dhaliyay goolasho marka kaasuba haysta rekoorka ninka ugu da'da yaraa ee taariikhda Arsenal gool u dhaliya 16 sano jir buu gool ugu dhaliyay ka war sidoo kale markaan eegno taariikhda waa kii ciyaartoyga Arsenal ugu goolasho badan waa Henry Thierry isagoo lugaha ku qaadaya kubadda ama jirbuu ku ciyaaraya ayaa Juventus laga keenayo Arsene Wenger baana ka dhigay maanta ciyaartoygu yahay Henry waa ninka Arsenal ugu goolasho badan taariikhda waxaanu dhaliyay 228 gool waxaana ku soo xigay ninka labaad Arsenal ugu goolasho badan Ian Wright oo hadda falanqeeya ciyaaraha isaguna wuxuu dhaliyay 185 gool ninka saddexaad Arsenal ugu goolasho badan waa Cliff Preston waa ninka u dhaliyay 178 gool ninka afraad waa Johan Radford oo isaguna u dhaliyay kooxdan 149 gool isaga iyo Jamie Bryan sidoo kalena Ted Drake ayaa isna gool caynka dhaysta oo isaguna dhaliyay 139 gool Doug Lennisman ayaa isaguna dhaliyay gool gaaraya 130 warwaha ninka Lennisman la yiraahdo isaguna wuxuu dhaliyay gool gaaraya
137 gool. Ruben van Persie wuxuu Arsenal kaga jira ciyaarto ugu goolasha badan kaalinta sideedaad oo Van Persie oo Arsenal u ciyaarayay 2004 ilaa 2008 intuu dhaxaysay wuxuu Arsenal u dhaliyay 132 gool. nin la yiraahdo Joe Holme ayaa isna u dhaliyay Arsenal waa ninka sagaal ugu goolasha badan ee 100 gool u dhaliyay waliba ninka tobnaad waa David Chark oo isna u dhaliyay 140 gool. marka Henry ayaa ah taariikhda ninka Arsenal ugu goolasha badan. haddaan eegnana dhanka ciyaartooyga ugu qaalisan ee kooxda Arsenal soo maray ciyaartooyga ugu qaalisan taariikhda Arsenal intay kooxdan jirto waa Nicolas Pepe waa ninka toddobaadkan wareysi ka qaaday ninka la yiraahdo Van Dijk wareysi ka qaaday maray Van Dijk oo muddo aan la marin ninkii mari weeyaa ninka kan yaa anu waan sheegay markuu Van Dijk ninkan la soo gadanay Pepe waxaan iri war Van Dijk kii ku dili laha wakan kii ku mari laha wakan waa kii toddobaadka maray oo Pepe inkastoo Arsenal laga badalay Liverpool ay adkaatay haddana waxa lagu leeyahay Nicolas Pepe ayaa ah ciyaartooyga taariikhda Arsenal ugu qaalisan oo waxaan Arsenal ka soo bixisay lacago gaaraya 72 milyan. ninka labaad Arsenal taariikhda ugu qaalisan wax weeyaan Pierre Aubameyang oo Arsenal ugu fadhiya 5 milyan. ninka saddexaad Arsenal ugu qaalisan waa Lacazette oo Lyon laga keenay 45 milyan. ninka afraad taariikhda Arsenal ugu qaalisan waa Ozil oo laga keenay Madrid 38 milyan. sidoo kalena ninka shanaad Arsenal ugu qaalisan taariikhdu waa ninka la yiraahdo Shakhrul Mustafi oo Valencia laga keenay 35 milyan lagu soo iibsaday. haddaanu eegnana ciyaartooygii taariikhda Arsenal lacago ugu badan ay ka heshay markii iibisay waa Oxlade-Chamberlain oo ay ka iibisay Liverpool 40 milyan bay ka heleen iyo Iwobi oo ay 30 milyan ugu iibsadeen kooxda Everton iyo Fabregas oo ay 2010 Barcelona ugu iibsadeen lacago gaaraya 29 milyan. sidoo kalena Overmars ayay ka iibsadeen 2000 Barcelona ugu iibsadeen lacago 25 milyan. sidoo kalena Emmanuel Adebayor ayay 25 milyan ugu iibsadeen kooxda Man City 2009 waa ka ciyaartooy ugu qaalisan taariikhda Arsenal lacag badan looga iibsadaa iyo kuwii lacag badan ay ku soo gadatay iyo taariikhii dhamaay Arsenal qaybo kale noo xigi doona Arsenal ku saabsan iyo kooxdaaduba haddii aad jeceshahay kooxda taariikhdeena soo qaadan iyo ciyaartooyda jeceshahay isbarbardhig ciyaartooy halkan baad fariinta hoos noogu reebi kartaayo inagoo dib u tixraaci doona idin soo samayn doona muuqaala ku saabsan akhayaaray inta baan ku dhaafaynaa nabadgelyo hada channelka cusub tahay fadlan noo subscribe garay si aad u hesho taariikhaha la yaabka iscaataynta aflaamta iyo kuwa kale badan nabadgelyo.